عبد السلام ويديي muxuu uga baaqday garow in ku filan jirto dadkuna hadda inay meel wada aadaan muhiim ah dad ku filan oo madax iyo siyaasiyiin iyo mucaarad hadii la rabo hadii madax maamul goboleed la rabo hadii kuwii dawladda federaalka la rabo intii ku filan waa jirtaa in la wada aado meesha loo buuxo dadka dhan ay jiraan muhiim ah anaga waxaan rabaa idinka inaan la joogno in la hadalno dawladda aan weerdiyeyno hadday xadgudub samaysaa u sheegno meesha inaan joognaa rabnaa dawladda isha ku hayno oo laga wada tegin goobta ayaa muhiima waa maasantiis maxamed cali aan ku bilaabayaa wuxuu yidhi maxamed cali musharaxiinta ma cabsanayaan sidii gabdhaha loo xabadeeyey may ka baqayaan may soo baxaan su-aalna qabato waaye laakiin waxaan kugu bishaaraynayaa shirkeen inoogu dambeeyey ee golaha midooda musharaxiinta oo yeeshay waxaan go'aaminay mudaaharaadka soo socda annaga inaan hogaamino waqtigiisa waa laii soo sheegaa meeshuu ka dhaca waa laii soo sheegaa dowladdana waxaa ka rajaynaynaa banaanbaxaas nabadda ah inay ogolaato wuxuu ka dhibaa lama arko waxaa la cabirayaa dareen ku aadan doorasho laysla ogol yahay oo dadku ku wada qanacsan yihiin inay dhacdo si loo helo cidda ka soo baxdaa cid la ogol yahay sidii maxamed cabdulaahi farmaajo 2017 loo ogolaado kale qofkii ka soo baxa in la ogolaadaan rabnaa mudaaharaadkaas annaga hogaaminayno horkacayno waana la soo sheegi doonaa meel kasta warbaahinta ka midana waa ku soo sheegaynaa marka maxamed lama cabsanin dadkaana ma cabsadaan hadda ka horna ma aanan cabsanin markii nala soo weeraray oo nala xabadeeyo dhalinyarada nala ka laayay oo jid kasta nala ka xiray waxaa intaas in nala cabsi geliyaa la isku dayahay oo aan dalkan ka cararno waliba dad isdhahay qofkan meeshuu ka yimid xoogaa ayaanu qurbaawi soo aan qurbaawi aad u weyn ma ahayn xoogaa le diaspora soo jooga asdaa ka waa carari doona oo diaspora ku noqonaa laakiin ma oo cararnimada waa soo taaganahay hadda goor waxaasda maka al-mukarrama soo dhex istaagay ayadoo afar baabuur oo gaashaaman iyo ciidan oo dhex taagan yahay danna kama aanan gelin waxaasna waxaan u sameynayay dhalinyarada inaysan cabsanin oo aan la cabsiinin haddii lagu cabsiiyo waa lagu duleysanayaa waana wuxuu ambaasadorka sheegayay maalik bin nabi oo sheegay alqaabiliya lilisticmaar la yiraahdaa dadka qaar waxaa jiro in la duleystay waxay u leeyihiin qaabiliyad waa u samaysan yihiin in la duleysto annaga Soomaaliya nahay duleysi waa Soomaali ma ogolo taariikhdeeda laguma hayo taasina ogaatiin waa runteed gabadhii su-aasha hiiraan i weydiisay waa runteed anaga ayadaba hiiraanaan ka nimid magaceedaan raadinaya habboon hiiraan soo dhawow waa run beledweyne waxa ka socdaa wax saxa maaha aniga waan sheegay bartayda facebookana waa ku qoray twitterkana waa ku qoray adduunka hadda media kuwaas oo noqda moogtahay haddana waa ku celinayaa waxa hiiraan ka socdaa waa dulmi 30 dhalinyaro habeen dhow meel wada joogto activistiyaal la hadlay saana u dhiirigeli waxaan idhi xaqiina si nabada ku raadsada safaaradaha ajnabiga qaar kamid ah ila soo hadlay marka arinta ka hadlay waxay dhaheen dadka community leaders ka mana wada sheey kartaa hawa wada hadashiyay amisomna waa ugu baaqaynaa inaysan dadka awoodda caburinta loo isticmaalin laakiin reehiiraan midaan rabaa inaan u sheego amisom ya amrika horta ma taqaaniin madaxweynaha bisa amri karo midka hirshabeellena ma amri karo ka balowle joogana ma amri karo amisom ma socotaa daa aragtiin amarka maxamed cabdulaahi farmaajo waa taasina ogaatiin waay amisom waa ugu baaqaynaa dadka inaan loo caburin dadka shacabka inaysan awoodda iyo mandate-ka security council-ka ay ku caburin dadka rayihiirana waxaan ku dhiirigelinaynaa xaqooda inay si nabada ku raadsadaan musharaxiinta iyo mucaaradka kale waxaan ugu baaqayaa meelaha dhibka ka jiro oo kale waa ka hadalnaa oo gedo ka mid tahay oo baydhabo ka mid tahay beledweynaha hiiraanna waa inaan ka wada hadalno oo sida aan meelaha kale uga damqanayno ayadana waa inaan uga damqanaa Soomaali waa noo wada mid dawladdana waxaan leenahay sida aan leenahay gada dhibka ka jooji beledweynaha hiiraan dhibka ka jooji amisomna waxaan leenahay magaca qarannimada Soomaaliyeed iyo mandate-ka baarlamaanka Soomaaliya iyo security council-ka ku joogtiin ha ku dulminina awoodiina dadka waxaan rajaynaynaa hadda waxaa la ii sheegay maalin inay magaalada ka baxeen markii hore ay jidadka xireen waxa uu xabadeeyeen ay ahaayeen ciidanka dawladda federaalka mar kale waxaan ugu baaqayaa war askari kastoo ogow dadka madaxda ee dalka hadda joogo
beri markuu mandate-kooda dhammaado diyaaraday ka raacayaan cidda lala xisaabtamaya waa adiga cidda maxkamadda sugaysa waa adiga haddaad dadka xabadayso disho ama dhaawacdo midka la sugaa waa adiga wiilkii maaldhow dharcadka ahaa ee gabdhaha xabadaynayay dadka dhan waa yaqaaniin jid kasta cidda lagu sugaa waa asaga farmaajo hadday waqtiga ka dhammaado ama ra-iisul wasaare ama mid baarlamaan jooga ama wasiir amni diyaaraddii ay ku imaadeen ay kaa raacayaan beri adigale iyo dadka isku soo haraysaan dadkaada iska ceebeyn gabdhaha walaalaha iyo wiilasha walaalaha iyo shacabkaada ha xabadaynin hana dilin berrina kaligaa ay ku sugaysaa xisaabtan aday kuu taallaa midii adduunkii midii aakhire labadaba waa maasantiin wasalaamu calaykum waxaa soo haray ninkii la yidhaahdo cabdullaahi mahdi waa run annaga waxaana laka rabaa dadka mucaarad iyo dowlad mu-ayid haddaan nahay labadaba sida ay u walwalayaan dadka qurba joogta waxaan ka naxaa aniga dareenkoodana waa run oo wax la tixgeliyo annagana marna afkeenna aniga ma xasuusto runtii iga cadaalad darre iga maaha qof mucaarada oo yidhi dagaalaa loo noqona ama 9 loo noqona ama 8 loo noqona aniga ma maqal afkeyga kama maqal dhagteedu kuma maqal kuleyto dadka mucaaradka saasay tahana dhib kasta waa naloo geystay waqtiin aniga waa la soo weeraray askartayda waardiinaysa la dilay madaxweynayaasha xilka ugu horeeyay farmaajo diyaarad aan degaynaa ay qatar ku galeen oo lala xirtay waa qof kasto anaga kamid dadka mucaaradka markuu ugu yaraado jidaa laga xirtay ama laboorka meel un baa loo dhigtay wax qof hadda ka sameeyay falcelis tabanna ma jiro dadka dhan falcelis toganay muujinayaan sababtoo waxay aaminsan yihiin dulmiga inuu waqti leeyahay madaxweynaha marka waqtigii uu diidan yahay wax kale ma doorashada dhaxaysa soo dhigo diidan yahay marka annaga waxaan ku kalsoonahay shacabkeena ama gudaha joogo ama dibadda joogo laakiin midaan ka naxsano cawada inii sheegaa waliba dadka qurbaha ka imaanaya ayagoo oo ku dhex nool dowlad sharcigeeda qaanuunka uu sareeyo rule of law la yiraahdaa siyaadat alqaanuun dhahan carabta ama sareynta sharciga kala dambeynta law and order-ka iyo rule of law labay kala yihiin law and order-ka maxaa waaye sharciga inuu jiro waaye faransi fuqiyama wuxuu dhahaa dowladaha dunida saddexaad intooda badan waxaa ka jiro rule by law laakiin dowladaha hormar maxaa ka jiro rule of law labay kala yihiin rule by law maxaa waaye kala dambeyn amniyaa jiro dowladaha dunida saddexaad oo dhan asaas ah laakiin sharciga ma sareeyo ninka xukunka haysta sareeyo laakiin kala dambeynaa jirto maxaa la yidhaha marka rule by law aa la yidhahdaa loogii waa jiraa oo dadkii kala dambeyntii maxkamadihii booliskii garsoorkii nabadii waa jirtaa dowladaha dhan oo dunida saddexaad tagta waa saas iyo eeshii inteeda badan laakiin yurub maxaa ka jiro rule of law ka jiro maxaa waaye sharcigaa sareeyo oo adiga iyo ninka prime ministerka ama ninka madaxweynaha sharciga waa u simantihiin Donald Trump ama ninka la yiraahdo Boris Johnson fayl dacwo ka geysanaysa ninka qaadigana waa qaadaa dacwada laakiin dunida saddexaad madaxweyne ma dacwo kartid qof madaxna ma dacwo kartid laakiin kala dambeyntii sharcigii waa jira annaga labadiiba hadda gacanta kuma hayno rule by law ma jiro rule of law ma jiro laakiin waxaan rabnaa inaan labadaba isla helno sababtoo haddii rule by law nagu dhaco hadda kor nagu dhacay dowladdii la dumiyey rule by law ahayd ninka dowladda ahayd sharci gacanta ku haystay laakiin maxaan rabnaa annaga sharciga inuu sarreeyaan rabnaa marka qof qurbaha ku nool oo rule of law ku nool oo qaanuun iyo nabad iyo cadaalad iyo dimuqraadiyad ku nool wuxuu u durbaantubayaa nin ama madax xukunka dadka kula xadgudbaysa uu leeyahay jir ee jooga ku haya Britain iyo America iyo Sweden uu joogahay ninkaas ama qofkaas ama kuwa ka yimidba ala madaxweynaha dalkaas ku noolaa Soomaaliya waxaan ka cabanayno asagii kala sareynta iyo sharciga iyo wali waxa la sheegay inuu dadka xuquuqda minorities-ka transportation u doodo oo hajiri dadka oo laga tira badan yahay qof saas oo kaleeta ah yaa wuxuu rabaa inuu kugu dayo inuu adiga san ka duleeyo asagana muxuu ku nool yahay meel sharciga uu sareeyo ku nool yahay muxuuna rabaa qof inuu sareeyo taageersan yahay annagana maxaan dhahaynaa qof inuu sareeyo ma rabnaa waxaan rabnaa sharciga inuu sareeyo hadduu bari ka dega xukunka maxamed cabdullaahi ama ra'iisul wasaaraha ama baarlamaanka waxaan rabnaa inay sharciga dadka ula sinaadaan rabnaa oo ayaga naftooda aan la dulminin hadda intay joogaan aan la dulminin dhammaanteed aan u simanahay waxaan rabnaa sharciga u simanahay waa maasantii wuxuu yidhi abuukar yaasiin waa ka xumahay in beej aan leeyahay lagaa biloogay qolada dhalinyarada ah ee beejkayga maamusha qofkii naga soo horjeeda qofkii na aflagaadeeya qofkii na dhaliilaa
waa maqlaysiin yaa la baloogin aniga kama shaqeeyo abuukar waxaa kuu bishaareynaya facebook aniga kama shaqeeyo wax lee ku qoraa dhallinyarada oo ila shaqayso mar kastana waa u sheegaa cidnaha balooginaan ku yidhaahdaa yaan la baloogin waa maqlaysiin qofna yaan la baloogin waxaa soo raacoo kale maadaama dadka bejka iyo commentigareeya ama followeriska 400,000 oo umalayn hadda dadka commentigareeya tiradii ka bateen aniga ma fiiriyo runtii mana eego laakiin dhalinyaradaas waa u jeediyaa biilkaas waxaan se rabaa inta inaan xuso oo arrin markasta inaan xuso u baahanahay saxaafadda madaxa bannaan ma aha cidda ay la xisaabtamaysa dowladda keliya inay tahay maaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka guddoonkiisa iyo wasiirada keliya maaha saxaafadda madaxa bannaan waxaan ka rabnaa mucaaradkan ay la xisaabtanto oo waxay ku qaldan yihiin la sheego oo dhaliisha ay leeyihiin la sheego oo haddee wax dhibaaya dadka ay sheegaan la qabto marka mucaarad iyo mu-ayid iyo dowladba in lala xisaabtamaan rabnaa saxaafadda ay dhammaanteed maalin xasan markii aan nala kulmeen saxaafadda madaxa bannaan waxay ka sheegteen waxay dhaheen musharaxiinta qaarkood haddaad dhaliisho waa ku soo wacayaan maxaa iga rabtaa maxaa wax iiga sheege aniga saasay leeyihiin annaga qof walba in wax laga sheego oo la dhaliilaan rabnaa ka xukunka u socda midka raadinaya midka hadda jooga isku si in loo dhaliilaan rabnaa annaga oo dadka ay u noqdaan dad u furan dhaliisha